iyadoo magaalada Buuhoodle gaar ahaan jidweynaha dhexmara magaalada Buuhoodle laga wado wado laamiga dhismaheeda imikana wadadaasi la rabo in laami la saaro ayaa wajigii koowaad wadadaasi waxaa maanta xarka ka jiray maamulka golaha deegaanka gaar ahaan gudoomiyaha golaha deegaanka Buuhoodle Cabdi Fanax Ali Cawil waxaa ka soo qayb galay wasiirada maamulka Khaatamo Oqaasha iyo waxgaradka deegaanka Buuhoodle wararka waxaa ka hadlay Macaw Axmed Cali gudoomiyaha ku-xigeenka golaha deegaanka Buuhoodle iyo Rashiid Cawil Cabdi Hirad wasiirka madaxtooyada maamulka Khaatamo iyo gudoomiyaha golaha deegaanka Buuhoodle Cabdi Fanax Ali Cawil waxaan xariga ka jaraynaa wadadan magaalada dhexdeeda ah oo marxalad badan soo martay waxaan doonayaa inaan ka warramo marxaladkii iyo heerarkii ay soo martay wadadan oo ah wado magaalada Buuhoodle dhexdeeda marta waxaa contribution ku galay bulshada reer Buuhoodle dhammaanteed sharaa'iga ganacsatada iyo dadka kale oo bulshooyinka ah wadadan heerkeedii koowaad oo dhagax oo jidcadaha ahaa wuxuu dhamaaday sanad ka hor waxaa qaybtii labaad ka qayb qaatay shirkad hay'ad DDG oo Danish ah hay'adaasi magaaladan bay timi waxaanu heshiis kula galnay inay wadada fayska labaad samayso annagoo ah golaha deegaanka heshiiskaasina maanta waa midho dhalay ilaahay fadligiisa meel fiican buu marayaa waad aragtaan maanta waxaa berri la saari doonaa insha Allah iyo saadaba mid uun daamurkii iyo jaygii hawshii wadadu sidaas ay ku dhamaatay waxaan rabaa inaan arrinkayga u kala qaado iyo hadalkayga saddex qaybood oo ah wadadan in reer Buuhoodle iyo shirkadda hay'adda DDG cid aan ahayn ayna samayn oo ayna wax shaqo aan ku lahayn arrinta labaadna waxaan doonayaa inaan ka dhigto wadadan oo aan doonayno inaan ugu magac darno halgamaagii weynaa reer Caymeed iyo reer Khaatamo iyo Soomaaliya oo dhan ay taqaano waa janankii Bashiir Bayden oo la yaqaan ummadda Soomaaliyeed qiimaha ugu fadhiyo maamulka Khaatamo wadadan oo ay asaaskeeda ay lahaayeen shacabka Khaatamo gaar ahaan magaalada Cayn shacabka ku nool maxaan ku raaddaa tijaartiisa shirkadihiisa qurbajoogtiisa iyo maamulka Khaatamo wadadan oo soo dhamaatay oo iminka la xariga laga jari doono waxaa loogu magac daray General Bashiir Jaamac Bayden waa generaalkii caanka ahaa ee Soomaaliya oo dhan caanka ku ahaa ee la wada yaqaanay isugabiye Carab iyo Umar Cigaal baa muddo ka maqlaa Buuhoodle Carab baa u gabiyo wuxuu ku yiri sidii uu galbeed uga leeyahay gabadha weynaatay waayahan go'doon buu ahaa nooma soo galin Carab Umar Cigaal baa u jawaabay gabadhan dastarigii dhammaa uga dharaar guuray ee aan dhashaydii horay dhaqanka reerkayga ayuu badow ku dheeldheelaya igu dhib weeyaan aan halkan uga mahad celinayaa dadka reer Khaatamo ee macnaha gartay imika dantoodii halgamayaashoodii iyo macnaha waxgaradkoodii macnaha hadda macnaha wax weeyaan u soo jeestay kuwa horena macnaha wax weeyaan sida garoonka Ismaaciil Mire ilaahay fadligii maanta waxaanu ku guulaysanay wadadan inaanu xariga ka jarro magaceedana aanu ku guulaysanay halgamaagii weynaa ee deegaankan halganka badan u soo galay ugana tagay dhaxalka aadka u fara badan ilaa iyo haddana lagu degan yahay General Bashiir Bayden wadadan markaa waxaa la yiraahdaa شارع البيدن بالله وطن شارع البيدن بالله marka aad iyo aad baad maasantiin waxaan marka labaad u mahadnaqayaa saxaafadda iyo uqaasha waxgaradka gobolka Cayn dhamaantood noocyada kala duwan baan u mahadnaqayaa aad iyo aad baad maasantiin ugu dambeyntii wadadan maamulka golaha deegaanka ee Khaatamo xariga ka jiranaya waxaa lagu magac daray Allah u naxariistay janaalkii caanka ahaa waa General Bashiir Jaamac Bayden oo isagu gobolka Cayn sumcad weyn ku lahaa isla markaana haatan taariikhda si weyn looga hadlayo guud ahaan gobolka Cayn waa Ali Cusmaan Ismaaciil Daktar wararka telefishinka caalamiga ee Soomaali Channel magaalada Buuhoodle